Arrintan ayaa loo aaneyn karaa dhibaatooyinka kala duwan oo jira oo ay ka mid yihiin qoysaskooda oo ah sabool, awoodna aan u lahayn inay bixiyaan qarashka waxbarashada, carruurta qaar oo aan haysan waalidkood oo ay dhinteen ama ay kala tageen, sidaasna ku muteystay dayac iyo in ay ku soo biiraan dariiqyada nolosha ka jirta. Xasan Cabduqaadir Cusmaan waa canug da'diisu tahay 14 jir oo ka xoogsada dariiqyada isagoo qabta hawsha ah in uu kabaha tirtira ama uu caseeyo. wuxuu ka waramayaa sida uu noloshiisa ku soo dhacsado. meeshaan qaybtan subaxdii meeqa saac soo gashay? hal saac 2 saac ilaa meeqa saac shaqaysa? ilaa 9 saac oo galabnimo. kadibna waa iska baxay. intee degantahay? xawal oo duleedkaas ma ka heshaa marka wax ku filan baabuur raacaaga, wax ku filan noloshaada oo maalintii aad ma ka heshaa? maya marka soo gasho subaxdii hal saac ilaa galabta 9 saac shaqayso ugu yaraan meeqa heshaa? $1 riba. $1 riba waa 30 kun. baabuurka meeqa lagu raacaa? baabuurka $1 lagu raacaa 20 kun. laakiin mar ma jirtaa oo lacag intaas ka badan shaqayso? $2 ma shaqaysaa. magaalada Muqdisho qiyaasha ay bixinayaan hay'adaha qaar sida UNICEF ay sheegayaan in wadooyinkeeda ay ku nool yihiin tiro ku dhow 2,000 oo carruur ah oo marka laga soo tago hawsha caseeyaha qabto howlo kale sida nadiifinta goobaha ganacsiga, maqaayadaha. Xasan ayaan waxaan mar kale weydiiyay haddii ay jiraan carruur kale oo suuq joog ah oo sidiisa oo kale ah oo aan haddana shaqaysan balse ku mashquulsan arrimo kale sida dhuuqista xabagta iyo koolada, sigaarka, tuugsiga iyo tuuganimada. sidoo kale waxa uu iiga waramayaa sida ay u jiraan dad carruurta dhibaateeyo oo ku canaada shaqadooda isla markaana niyad jibiya mar walba kuna digta oo aan ka naxayn dhibaatada ay ku jiraan. waxa aan taqaan bashma wax oo aan u kaseen kawaa ma asayn markii oo kawaa ma asayn lacagta siyaada lacagta waa ku sii dhawayn waalidiinta qaarkood inkastoo dhaqaale ahaan carruurtooda ka reebi karin suuqa una heli karin waxbarasho, haddana way ka warqabaan carruurtuna way u hoydaan iyagoo dhaqaale ahaanna caawiya qoyska. Ashkira Maxamed Maxamuud waa hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeeda da ahaan aan ka weynayn 10 sano uu caawiyo, waxayna ka waramaysaa sida canugeeda uga qayb qaato dhaqaale ahaan in uu gacan siiyo qoyska. wiil yar oo 10 jir ah ay joogo maalintii wuxuu keenaa $1 iyo bar marmar waa ku aadaa marmarna adee 10 kun 5 kun aad isku keenaa sas wax u soo haras wax u dhiibaa maanta ciyaala soo dagaalna maanta waa lii soo dhac maanta saana lii soo yeelay si walba naqana laakiin sin yeelahay dantii iyo daruuftii ah ugu khasabtay. dadka qaar waxay qabaan in carruurta nolosha adag kala kulanta suuqyada ee ka shaqaysata sida wanaagsanna u dhaqanta ay qaarkood marka dambe ku guuleystaan inay dhistaan noloshooda. waa kan aabba Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho wuxuuna ka hadlayaa waaye aragnimadiisa carruur suuqa ku kortay oo iskoris ah ay u diyaarsadeen noloshooda una dhisteen mustaqbal. horta waa dareen aad ku taabanaya marka aad arkayso ilmo yar oo da'dii wax ku baran lahaa mustaqbalka dalka iyo dadka iyo isagaba uu wax isku tari lahaa oo maanta caseeyanimo ku mashquulsan yahay halka ilmaha lodkiisa ama da'diisa ay uu qalin iyo waxbarasho ku jiro. waa dareen xanuun badan. waa dareen waxaad dareemaysaa inay wax maqan yihiin ay ka mid tahay waalidkii oo hadda wax laga yaabaa inuu hooyadii iyo kuwo kaloo ka yaryar waxa yare uu ku shaqaysto uu siiyo oo uu kuwa ku sii qoodiyo. meesha waxa ka maqan waalid ama waxa ka maqan dareenkii dawladnimo ama mujtamac ahaan saddexda oo haddii waalidkii la waayay waxay ahayd mujtamacu inuu ka damqado oo awlaadda noocan oo kale ah inta ay wax isku geeyaan ay soo gaarsiiyaan. waayo kan baalashkay caseynaya iyo ka qalinka waysta wax baranaya way qaar badan oo waxa jira caseeya haddana wax barta ka labada dalka mid aan fici doono ma naqaano. ma aha in carruurta darbijiifka ah kuwooda muujinaya dadaal ah in ay shaqaystaan
ama noloshooda soo dhacsadaan lagu sameeyo niyad jebin, hankoodana hoos loo dhigo. Mar kale, aabbahan Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya in ay tahay in carruurtan niyadda loo dhiso laguna baraarujiyo shaqadu inay tahay sharaf aad u weyn wax kasta oo loo qaban karo oo kor loogu soo qaadi karo hankooda loogu sameyn karo mustaqbal waa wax aad iyaga iyo dal ahaan intaba anfacaya waayo waa u baxeen beritoole.